السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحاب تمل بودونك أجوتين وايدين بالسلامة سو ذا لواذا وولاشين الدنيا إفكا دنيا قرح دنيا دقن إذن كائلة بحدين أدي هذا إذن كجم هاد علينا يا سيدي وناقي شرفتي عزي أيه سين أذكر الوقادين ولا له قالية فضلا channel كدنيا إفكا هدي أذكر عصبتها سبسكرايب صار هدي أظهر إبليسي جوتين أد بان كاجم هاد علينا فكر كاجا ولا له قالية هو تسودي من كرتين ما أنت درين يوحى هايو waxa ay u kaxsan adiga mala qiyaasi karo waxaan maanta wiliga aliye kamaana hadlin qofkaasi maana soo qaadanin mana aan ka hadlin maanta waxa ay u kalif anoo dukaankayga joogo inaan ka hadlo waa dareen aniga i qaaday idinkan hadaa ila qabtiin fikirkiina waa soo bixin kartiin oo comment qurux badan waa soo dhiiban kartiin oo waa ka soo hadli kartiin maamadeena ama gabadheena ama walaasheena hana abuukar horta fikirkayga aniga saa u arki jiri intaan youtube-ka aan lahayn intaan furanin mise aan social media in isticmaalin iyada waan ku xirnaan jiray oo aadan u daawan jiray kullaysa aniga mar walba waan taageeri jiray waxayna aheeday hooyo Soomaaliyeed oo hooyo kale ama caruur ama qof dhibaataysan mar walba garab siiso ayay aheeday mana jeclay gabadhaasayta qofkii maanta oo xumaanteeda soo qaato aniga shakhsiyan kama helo mana jeclo mana daawado mana sheer gareeyo xumaanteeda haddana muqdisho ayaa lagu xiray maxaa muqdisho lagu xiray hooyo Soomaaliyeed waay hooyo dareen leh waay hooyo mar walba ka soo hadasho waay caruurta hooyo kala caawisa waay hooyo qof walba dhibaataysan u gargaarta waay maxaa loo xiray waxa loo xiray maxay tahay waxa loo xiray waxay tahay waxaa lagu eedeeyay inay caruur ee kaliyaha kala baxday taas ma dhici kartaa aniga shakhsiya ahay fikirkayga waa igu raaci kartiin wadna iga diidi kartiin ma aaminsani mana dhici karto wayna dhici kartaa qofka bini aadamka muqdisho qofkii ka soo dego inay macnaha la dhibaateeyo mise la xiray maanan ku aqoonin mana ku garanay mana weligeena maanan ku arkin laakiin waxaysan ku dhici karin waxay tahay hooyo Soomaaliyeed oo mar walba hooyo Soomaaliyeed oo mar walba garab siiso gabar yar oo Soomaaliyeed mar walba garab siiso hooyo caruur dhashay mar walba ay caawiso caruur badan mise agoomaha ahaadaan ama hooyo uur leh oo ilmihii lagu daadiye ha ahaato ama hooyo dhibaataysan ha ahaato ama gabar la jildiye ama la farxumay ha ahaato in badan iyadoo ka hadlaysa aniga waan daawadaa waana ku xiranahay markaan aniga horta aad iyo aad maanta ugu xumahay wallahi markaan arkay aad iyo aad u ilmeeyay laakiin wax walba oo run ah way imaan doontaa haddii Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka raali noqdo laakiin aniga fikradeyda waxay tahay maxaa loo xiray hano waa qof aad iyo aad qaali u ah waay kullaysa waxaysan ku dhici karin waxaysan ku dhici karta aniga xaggayga waxaan aaminsanahay ma dhici karto idinkan hadaa ila qabtiin fikirkiina waad soo dhiiban kartiin waxaysan ku dhici kartana waxay tahay qofka shakhsiyan horta wax walba oo bini aadamka wax walba waa ka filan kartaa wax walbana wuu ku kici karaa qofka marna wuu wanaagsan yahay marna wuu xumaan karaa sidii bini aadamka waxa waaye oraxda dhinacay u soo baxday iyo dhinacay u dhacda waaye markaan waxaan dhihi lahay walaalihayga Soomaaliyeed gabadhaas waa gabar Soomaaliyeed waaye gabadhaas in lagu dhigo maslaxa xaqta aad iyo aad loogu qurux badan yahay inaan u wada istaagno waaye hadda waa aragteen gabar yar oo 17 jirto oo waxa waa hadda iskuulka dhameysay ragii waxa waaye Soomaaliyeed dhibaatada iyo falalka xun ay ku kacayaan oo ujeeda waa bilo aadan hadda waa la dilay waa la kufsaday dhibaato xun loo geystay waa gabar yar oo hami lahayd waaye gabar wax baratay waa bulsho wax baratay waaye haddana waa ujeedin dhibaatooyinka iska daba imaanayo waa dhibaato aad iyo aad u xanuun badan waaye dhibaato aad iyo aad u xun waaye markaan waxa idin dhihi lahaa aniga fikradeyda waad igu raaci kartiin waadna igu diidi kartiin ani kullaysa qof bilo aadana ahay qofka bilo aadamkan fikrad xunna wuu aamini karaa fikrad fiicanna wuu aamini karaa laakiin aniga marka dunya ifka aan ahay fikradda maanta ani aan wato waxay tahay hano maxaa loo xiray hano waxa Ilaahay ugu baryayaa iyada oo nabad qabta inay soo bixi doonto aan u soo wada duceyno ducada ani kaligayga inaan dhiibo ma ahan idinka dhan inaan u soo wada duceysiin waay waa hooyo Soomaaliyeed waa gabar walaasheena waa gabar hadda kullaysa qof markuu uu xabsi ku jiro waa qof iska dhibaataysan waaye qof murugo badan iyo walwal badan haayo waaye inkastoo runta ay gadaal ka imaan doonto runta mar walba waa la ogaanaa gadaalna way ka soo bixi doontaa insha Allah biidnillaahi kariim waxaan dhihi lahaay
hano nabad ku soo bax waa gabar aad u fiican waaye gabar dadka caawisa waaye gabar dadka waxaa waaye qofka markuu dhibaataysan yahay intuu ku nafisi karaa maanta haddii afarta dhinac ay kaa soo xirxiranto oo waxaa waaye aad dhibaato xun ay ku hayso oo aad ilmeynaysid qofka keliya oo ku dareemi kara waxaa waaye ragga ma ahan ee dumarka waaye qofka qof dareemo waxaa waaye dumarka waaye markaan anigu waxaan dhihi lahay qofka keliya oo dareemo dumarka ayay aheeday qofka keliya oo ilinta dumarka ka tiray aheeday qofka keliya u kaco oo u kufo oo mar walba dhiirigeliyay aheeday marka anigu waxaan dhihi lahay maanta lama qiyaasi karo xaaladayda markaan maqlay mise aan daawaday mise aan arkay dad badan oo kasoo hadlaayo waxaan dhihi lahaa hano nabad ku soo bax weligay qofka maanan hadlin aniga fikradayda mise shaksiyan baan ahay waxna waa aamini karaa waxna ma aamini karin laakiin aniga hadda waxaana aamini karin hooyo Soomaaliyeed way gabadhaas inay caruur keliyaha ay kala baxday taas ma dhici kartaa commentin waa soo bixin kartiin hadday dhici karto iyo haddaysan dhici karin marka waxaan dhihi lahay qof shaksi oo qalbi fiican waaye qofka markuu qalbigiisa weyn yahay uu qofka uu yahay qof wanaagsan intaas oo dad ay qalbigiisa uu qaadi karaa sababtee tahay waa qof qalbi aad u weyn qofka qalbigiisa markuu weyn yahay waa qof nadiif ah waa qof fiican waaye waa qof dareen leh waaye waa qof mar walbaba kasoo hadlo gabar Soomaaliyeed ama hooyo dhiban oo garab siiya waaye qofka keliya oo dhiirigeliya gabdho badan oo dhibaataysan oo hintooda oo ilintooda hoos u bixi jirtay murugtooda ku seexan jireen ayay daaha ka qaaday gabdho badan oo wallahi la soo koobi karin oo mar walba u duceeyo oo mar walba ay garab siisay mar walbana ay dhiirigelisay ayaa wada joogaan adduunyadan ay wada badan yihiin gabdhaha oo mar walba ay hana garab siin jirtay marka waxaan dhihi lahaa hano jir oo joog hano jir oo joog inta xumaanta jecel iyo inta micnaha waxyaabaha oo qaldan soo qaataan waxay diilaan hana waa qof qaali ah waaye qof qiimo leh waaye qof aad iyo aad u sharaf badan waaye marka waxaa idin dhila horta dumar kale dhibkiisa wuu dareemi karaa qofka markaa dumar tahay dumarka kale dhibkiisa iyo xanuunkiisa dumar unbaa dareemi karo marka waxaan dhihi lahay hooyo badan oo waxaa arkay wallaahi caruur haysato oo nin inay guursatay ninkii ilmaha ugu laabtay oo waxaa waay gabdhihii ka faraxumeeyey oo gabdhihii qarsanayaan oo gabdhihii hoos u ooynayaan oo hano qalbiyadooda markay la wadaageen iyo dhibaatada haysatay markay la wadaageen oo waxaa waay dib haddana oo macnaha ay u midoobeen hooyadii iyo gabdhaheedii hooyadii oo ninkii waxaa waaye iska ceerisay oo kusoo baraarugtay oo gabdhihiina waxba sheegin karin oo dhahayaan mar walba dhibaana haysto kama hadli karno anaga dhibaato xoog ballaarnaan haysato waa hooyadeeni waa adeerkeeni kama hadli karno ma dhexgali karno oo haddana isla mar ahaantaasiita oo kusoo baraarugtay markay gabadheedii dibadda ay u carartay mise banaanka ay u carartay ee qof shaksi ah oo hooyo oo dumar oo dareemi karo ay kusoo nafistay markaan waxaan dhihi lahaa qofkaasiita waa qof aad qaali u ah waaye waa hooyo aad qiimo u leh waaye waa hooyo qofka xanuunkiisa dareemi karta waaye markaan dumaraa dareemi karo saa hore idinkugu sheegay markaan inta waxaa idin dhihi lahay kusoo wada duceeye haddaa qalad iyo gaf iga dhacayna iga raali noqda ilan qof shaksi ee weligay kamaanan soo hadlin waxaa igu taqaaneen inaa idinka qosolsiiyo inaa waxyaabo faa'iidooyin inaa idiin soo geliyo haddii aan qalad ku hadlin kun iyo koo jir waxaa idin dhihi lahaa iga raali noqda raali aad iyo aad u balaaran ayaan bixinayaa marka waxaa idin dhihi lahay haddana saasaa idinkaga sii tagaya kusoo wada duceeya gabadhaas walaasheena ah nagasti haddii lasoo deeyo farxad ay kusoo baxdo arrintaasna ay beenoodo insha allah waa idinla soo wadaagi doonaa biidnillahi kariim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu